وعنا ونكسن داوديال جوح وركة تيوب أياد نجد داونيسان الفنان محمد مامي أيا سوين لوجوسو دوي دالك جيبوتي الفنان محمد مامي شوقي سمدعيا مسمدعيو مرير جيبوتي ديد مدو دي أيا شقينيس مس الدولة أود دي أيا شقينيس مقال كان أيان رباه إن حقت الصحدة الشوقاسي أن كوجولا وذاقو يا محمد مامي أو هدي ويهينين عقل له أو فكرية طبعا 10 كبران كره بوقي لوgu furay showgiisa soo dhawaada xilliga salaada muuqaalkan hadii uu ku soo gaaray fadlan tuko salaada inta aan lagugu tukan waa yahay daawadayaal alfanaan maxamed maame waa fanaan Soomaaliyeed oo caan ah kamida fanaaniinta ugu miisaanka culus ee reer Somaliland ee caanka ee la yaqaano waa fanaaniinta dhalinyarada ah suugaan badan leh wiilkan magaciisa dadka koonfurta aad waxay u barteen maalmihii buuqa uu ka taagnaa showgii Marwan Yare iyo Habboon Nuura oo la kansalay oo yiri Hargeysa hadii aan waan isku filannahay qof kale oo Soomaali uma baahnin hoygii fanka waa halkan sida daraadeed qofna yoosan noo imaanin qofna annaga uma tagayno waarun Hargeysa waa hoyga fanka laakiin sida uu hadlay dad badan ayaa aad u dhibsaday oo xitaa dad reer Hargeysa ama reer Somaliland ayaa eragaasi ku dhibsaday oo sheegay inaysan sax ahayn oo Soomaali iyo fankeeda marka laga hadlayo fanka in xuduud loo yeelo mar horeba ay shaqeyn weysay haddana aysan shaqeyn karin waa caadi in fanaan ama wariye ka socdo koonfurta Soomaaliya uu tago dhinaca Hargeysa kuwa ka socdana ay Muqdisho yimaadaan oo wax weyn ma hadalkaasi inta kuma ekaan ee reer Djibouti ayaa ka falceliyay oo markii uu show soo dhigsaday Maxamed Maame waxay yiraahdeen ma iman kartid maadaama Soomaali aadan u baahnayn oo hoyga fanka aad joogtid Hargeysa ku qabso show buuq badan ayaa lagu furay ninkan in kasto dad reer Djibouti ah oo iyaguna ninkan difaacay ay jiraan haddaba daawadayaal ninkan waxa la ogaaday in ay qaraabo dhow yihiin ama eedo ay ugu aadan tahay madaxweynaha Djibouti islaantiisa ama xaaska madaxweynaha Djibouti waxa la sheegay in maadaama eedadiiba uu madaxweynuhu qabo ninkan showgiisa la hor istaagi waayay anigu Djibouti ma tagin laakiin waa sida dad badan ay ii xaqiijiyeen arinta 12 bishan ayuu qabsoomayaa showgii uu Maxamed Maame rabay in uu ku qabsado magaalada Djibouti showgan fanaaniin badan oo reer Djibouti ah ayaa kala qayb galay dawladda Djibouti iyo fanka dawladda Djibouti marka loo eego xagga fanka waxa ay ku bixisaa dhaqaale badan dawladda Djibouti marka loo eego xagga fanaaniinta waxay siisaa ixtiraam badan waxa jira fanaaniin badan oo ka soo jeeda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ama Somaliland ka soo jeeda ama dawlad deegaanka ka soo jeeda oo Djibouti ay ixtiraam gaar ah u hayso isla markaana xitaa la siiyay dhalashada wadanka Djibouti oo baasabooro Djiboutian ah adduunka ku mara dadkaasi waxay u tagaan wasaaradda dhinacan fanka qaabilsan waxaana mar walba soo dhaweyn u sameeya mas'uuliyiinta wasaaradda oo iyagu si gaar ahaaneed u raba in hoygii fanka Djibouti ay noqoto oo markaasi Djibouti fanaaniinta qiimaha badan ay leedahay ay sii kordhaan arintaasna waa arin kale oo muujinaysa Soomaali jaceylka midnimada iyo Soomaalinimada sida ay uga go'an tahay reer Djibouti haddaba daawadayaal waxa la xaqiijiyay in uu qabsoomi doono showga alfanaan Maxamed Maame wuxuuna qabsoomi doonaa taariikhdii loogu talagalay in uu dhaco showgaasi oo ah 12 bishan Abriil oo aan ku jirno oo dabcan maantaba taariikh 8 la joogo waxaana ka harsan muddo 3 maalmood oo kaliya waxay ku soo aadaysaa maanta oo talaada marka laga bixiyo arbaco khamiis jimcaha habeenkeeda ayaana showgaas uu u dhici doonaa alfanaan Maxamed Maame fanaaniin kale oo reer Hargeysa inay halkaas ka soo muuqan doonaan ayaa la sheegay fanaaniin kale oo reer Djibouti ah in halkaas ay ka soo muuqan doonaan iyaguna waa la sheegay fanaan Maxamed Maame si aan caadi ahayn ayaa loogu soo dhaweeyay magaalada Djibouti ee caasimadda wadanka Djibouti wuxuuna sheegay in showga halkaas uu tagay showgana uu qabsoo doono iyadoo dadkii ka careysnaa alfanaan Maxamed Maame aysan arintan ka hadlin laakiin ay sheegeen in showgaasi aysan ka qayb gali doonin oo banaanka ay ka istaagayaan showgaasna iyagu uusan qusaynin Maxamed Maame waa nin dhalinyaro ah hadii uu si wanaagsan u fakaro wuxuu halkan ka baran karaa 10 ah in nambarada qaar aan la garaacin marka loo eego lambarka Soomaali weyn dad Soomaaliyeed qabiil Soomaaliyeed shakhsiyaad Soomaaliyeed inaadan ku xad gudbin si adigu aad isku ilaaliso sharaftaadana aad u ilaashato marka laga hadlayo fanka xuduud ma laha wariyaasha xuduud ma laha dhaqaatiirtu xuduud ma laha
waxay ka mid yihiin dadka loogu talagalay in xuduudaha ay gooyaan oo meel allaala iyo meesha ay doonaan dunida ay ka tagi karaan. maxamed maamo oo kaliya maaha, fanaaniin kale oo waxaa jira mar kasta ama Soomaalinimada dura ama qabiil gaar wax ka sheega ama shakhsiyaad ku dhaga oo baraha bulshada dadka isticmaalay u badan yihiin. inkastoo wiilkan aan ku arkin isagoo isticmaalaya baraha bulshada, haddana maxamed maamo maanta cashirka uu baran karo waxay tahay in mar kale uusan ku fududaanin in Soomaalinimada uu wax ka sheego ama qabaa'il uu wax ka sheego ama reer uu wax ka sheego ama dad gaar ah uu wax ka sheego. taasi oo sumcadiisa kor u qaadi karta, guulna gaarsiin karta. maxamed maame wuxuu bilada East African Artist kula tartamay ninkii ahaa Saalax Sanaag isaga the best noqday oo ninka Soomaaliya u tartamayay noqday ee guuleystay, maadaama labadooduba Soomaaliya ay u tartamayeen Saalax Sanaag iyo ninkan ah maxamed maame. maxamed maame inuusan biladan ku guuleysanin dad badan si saadaaliyay, sababtoo ah ninkan dad badan oo xitaa laga yaabo inay taageerayaal u ahaayeen ayuu ku waayay hadaladii uu sheegay markii Habboon Nuura ay dib uga degtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. haddaba daawadayaal, showgaasi iyo saameynta uu yeesho il gaar ah ayaa lagu eegayaa, tirada dadka ka soo qayb gali doona iyaguna il gaar ah lagu eegayaa, iyadoo reer Djibouti dad badan oo taageersan ay fanaanka jiraan, kuwaasi oo iyaguna baraha bulshada soo dhigay inay diyaar u yihiin in ay fanaanka ku garab istaagaan showgaasi oo ay showgiisa u camiraan sida ay sheegeen. haddaba daawadayaal, fanaaniinta kale iyaguna qabiilada caaya oo dadka Soomaaliyeed kala geeya oo dhibaato sameeya, halkan cashir ayaa ugu jira. cashirkaasi oo ah fanaan marka aad tahay waxaad u baahan tahay shacbiyad. haddii shacbiyad aadan lahayn, hees kasto aad qaado 20 qofood 10 qofood oo reerkiina ku daawan doonto. maanta waxaad u baahan tahay waxay tahay in aad kor isku qaado Soomaali ay ku noqoto, bal Saalax Sanaag fiiri, Nimcaan Hilaac fiiri, Dayaxdal Nuursha fiiri, iyo fanaaniin kale oo badan oo qabiil aan looga baran inay ka hadlaan. talentigooda ayaa hormaray, ganacsiyay furteen, horumaray ka sameeyeen fanka, meeshay joogaan fanaana jooga la leeyahay. halka fanaaniinta 24/7 TikTok fadhiya, boostiyada soo qoraya, dadka aflagaadeynaya, xitaa ay luminayaan custom badan iyo aroos ay ka heesi lahaayeen ama meel qiimo badan oo ay tagi lahaayeen. muuqaalkan halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo Guuxa Wararka Tube aad iga daawanayso, soo dhawow ayaan ku leeyahay. wadadii 60,000 aan ku gaari lahayn ayaan haynaa. ka mid noqo saaxiibada halkan aan ku leenahay. Guuxa Wararka Tube wuxuu ku soo gudbinayaa xogo ku saabsan arrimaha bulshada oo aan diiradda saarno inta badan. muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doono, sida iyo nabadgelyo, nooli kulanta, amaana Allah.